halkani waa janalka aftahan video production meel walba dunida inaga maqlaysaan waqti wacan ayaan u dileenahay goordhow waxa idinku soo maqan barnaamijka subax wanaagsan oo kamida barnaamijyada ka baxa janalka aftahan video production barnaamijka goordhow idinku soo maqan iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan waxaad ka heli kartaa janalka magaciisu yahay aftahan video production waxaana jira janalo inta badan aanan tixgelin copyright-ka isla markaana intay galaan aftahan video production ay kala soo degaan barnaamijyada kadibna ku shubtaan janaladooda laakiin muhiimadu waa carab fadlan dhagahaga fur barnaamijyada kala duwan ee xiisaha badan ee aan kala hadlayo waa barnaamijyada ku jira janalka aftahan video production ee fadlan ogow barnaamijyadaasi asalkooda waxa iskale janalkaasi ballanteenu waa janalka aftahan video production anagoo ku wada biirnaa kana mid noqona kumaanka kunay ku xiran had iyo jeerna ka dhagaysta barnaamijyada kala duwan imikana saacaddu waxay abaaraysaa waqtigii aad dhagaysan jirteen barnaamijkii arooriyaada subax wanaagsan oo ka mid ah barnaamij siyaasadeedada xiisaha badan ee ka baxa janalka aftahan video production anigoo cabdilaahi balwaana ayaana ka soo jeedinaya xarunta warqabadka janalka aftahan video production uu ku leeyahay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaad subax wanaagsan bismillaahi raxmaani raxiim nabad weeye nabad dunida meel walbood inaga dhageysanaysaan anagoo wacan iyo idinka oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaad subax wanaagsan waxaa soo iftiintay qoraxdii arooriyaadu shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh waxa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idilo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ee inta uusan ku goyn adigu go subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaad subax wanaagsan mar kale kula wanaagsan dunida meel walbood inaga dhageysanaysaan qodobada barnaamijka subax wanaagsan ee xilligan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiga Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo soo rogaal celiyay isaga oo wata qorshe lagu fashilinayo farmaajo iyo qayre maamulka koonfur galbeed ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad qodobada oo faahfaahsan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeenan arooriyaada subax wanaagsan magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaad subax wanaagsan mar kale subax wanaagsan dunida meel walbood inaga dhageysanaysaan goordhow waxaad maqli doontaan siyaasigii Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo soo rogaal celiyay isagoo wata malaayiin dollar isla markaana ay gadaal ka riixayaan imaaraadka carabta qorshaha uu mar kale damacsan yahay maxuu yahay waa fashilinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Qayre qorshuhu qaabka uu soconayo ayaad saaka barnaamijka ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore maamulka koonfur galbeed ayaa si adag uga hadlay hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad bismillah arkasoo waa ka hadalnay maantana waa ka hadalnay gudoomiyuhu waxaad mooday wuxuu kala garan waayey mas-uuliyadda uu haayo iyo sida uu hadli karo marka lagaf ah oo runtii aanan garanaynin isagoo hadda deegaanadan hadda xataa kama soo jeediyo dadka challenge-ga isku haya kuma jiro marka war uun iskaga muuqday in cid kale leedahay asagoo yeerinayaan u aragnaa waxa uu ku hadlay waa gartay dad badan baan laga yaabaa inaysan ogeyn arrinta jirta bal warkan aad jawaabtiisa maanta bixiseen ee ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka labaad muxuu ahaa marka hadda wuxuu yaallaa media oo dhan ba ahaaye warka gudoomiyaha oo war ilaa intaan xusuusto 20 daqiiqo ku dhawaad uu hadlaayo waaye oo media oo dhan ba waaye laakiin annagu hadda inta naga khuseystay waxay ahayd inaan dhahno gudoomiye dadkan iyo deegaankan iyo maamulkan ama institutionka dhan oo aad wax ka sheegtay maasta inaan sidaana ula hadasho marka caqli bay ra'yigeenu ahaa waana rajaynayaa inuu cudurdaar ka dafayo wuxuu ku hadlay
waayahay bal maxay ahaayeen haddii aadna xasuusaado mahadsan qaybta koonfur galbeed waxaa marka qaybta hadda sida gaarka anaga ay tahay taabanaysa oo xafiiskayga si toosa ugu weeraray oo yiri koonfur galbeed dastuur ma laha la aqoonsan yahay amba waa lagu aqoonsan yahay koonfur galbeed dastuur ay leedahay maada duusan ogeynaa dadka koonfur galbeed iyo soomaalida kala og waana heshiis bulshada koonfur galbeed degan ay ku heshiisay intaan dowladda la dhisin ka hor marka waxyaaba noocaas oo u muuqday inuu iska hadlay ayaan ka safaynay annaan u sheegaynay annaga waduu u baahan yahay dastuurka koonfur galbeed uu u baahan yahay diyaar u nahay dowladda ka sin waa garta marka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ma la hadasheen oo arrintan hadda aad ii sheegayso ma kala hadasheen waa la hadalno kan hadda aan kala hadlayo ama kii aan maanta ka hadalnay laakiin alla hadalkii ahaaba amba saxaafeedkaan soo saarnay ama la hadalkii ah marka meel public oo nagu maagay marka annaguna publicada ayaan kala hadalnay oo si gaara waxaan uga hadalno gaar nagama dhaxayn siduu noola hadlay oo ra'yigiisa uga hadlay ayaan ra'yigiisa inuu khaldan yahay annaguna u sheegnay waa gartay marka laga soo tago in warbaahinta aad hadallo isku mariseen si shaksiyana isaga ma ula hadasheen oo arrintan ma kala hadasheen wax shaksiya oo naga dhaxeeyo oo iskula xiriirnaa nagamama dhaxaynba annaga waxaan aragnaa ninkan gudoomiyaanku isaga oo publicada istaagay ka hadlaya arrimaha koonfur galbeed ku saabsan hataa hadduu ka hadlo kanin soomaaliya aan ka mas-uula waxba kama qabno laakiin ummadan waxay ku heshiisay oo institution dhan oo dhisan oo doorashadiisa ku tilmaamay oo dadkii soomaaliyeed doorashadaas ka qayb gala uu ku sheegay waa dad aadi rabay ahaayeen Christmas waa dad la qasbay waa dad laba isbuuc meel la iskugu keenay waxaasoo hadda jigiisa ahayn ama isaga afka ka saaraysa jirna hadday khaldan tahay hadday saxan tahay laakiin aflagaada yani ausan waxba dhaafin ama dadka diintooda ha noqoto ama irdagooda ha noqoto ama madaxdooda ha noqoto ayuu ninkaasu ka hadlay marka annagu laakiin caqli-aan bay waxaanu ka hadalnay waayahay marka hadda waad eedeyseen oo hadalkuu yidhi suuraba u dhiga laakiin eedayntiina ma laga yaaba in arrintai sii kordhiso waan u jawaabnay adeer maanaan eedayn annagu waa u jawaabnay waa gartay marka jawaabtiina soo lagama yaabo in xoogaa wax kale ay fasirto oo arrinta si kale ay u dhiganto su-aal kasta jawaabay leedahay marka hadda su-aal qofti weydiiya qof kale amba qolo kale weydiiya in loo jawaabo kama naxyo mudanuhu inuu miisaanka ummadda u taqaano annaga waxaan u naqaanaa gudoomiye la doortay inuu yahay cod baarlamaan ku fadhiya kursiga xildhibaan qaran ah annagu saasaan u naqaanaa marka sidan loo yaqaano inuu u dhegmaan ka rajaynaya haddii ilaha yidhahda anna uu ku dadaalo inuusan hadee si ogaalayo si ogaal la-aan ah amba cid kale ra'yigeeda soo isticmaalaya xataa inuusan asagoo afkiisa ka sheegin oo mas-uuliyadda uu ahay miisaankiisa inuu isla simaan ugu baaqayo waa mahadsantahay subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaad subax wanaagsan ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke isla markaana hogaaminaya xogaga mucaaradka ay diidan dawladda ay hogaaminayaan farmaajo iyo qayri ayaa soo rogaal celiyay isla markaana isagoo wata markan malaayiin dollar isla markaana ay gadaal ka riixayaan imaaraadka carabta qorshaha cusub oo wato Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore ah in wafdi imaaraadka carabta ka socda isla markaana siyaasad ahaan isaga ka duulaya ay soo gaaraan magaalada Muqdisho wafdigaasi ayaa wada malaayiin dollar oo lagu raali gelinayo farmaajo iyo qayri maadaama heshiiskii dekada berbera laga qariyay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana dawladdu ay aad uga hadashay si loo damiyo barnaamijkaasi culus iyo go'aanka uu ra'iisul wasaare Khayre qaatay ayay doonayaan wafdigaasi in lacag malaayiin dollar la gaarsiiyo villa Soomaaliya si loo damiyo barnaamijkaasi isla markaana imaaraadku ay ugu suurta gasho heshiiskii berbera ee saddex geesoodka ahaa isla markaana Somaliland Ethiopia imaaraadka u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliyana laga soo qaaday waxba kama jiraan loo hirgeliyo qorshahan ayaa waxa gadaal ka riixaya Cumar
cabdirashiid isla markaana waa siyaasadda koowaad cumar cabdirashiid oo ku jiirayo hayndaabka weyn ee ballaaran isla markaana dowladda federaalka iska xijisay xogaga mucaaradka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee imaaraadka ka amar qaata haddii lacagahaasi la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho inkastoo warar lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan in saacadaha nagu soo aadan wafdi ka socda imaaraadka carabta ka soo degi doonaan magaalada Muqdisho wafdigaasi waxay wadaan lacago loogu talagalay farmaajo iyo qayre isla markaana ah malaayiin dollar oo lagu raali gelinayo maadaama qalad weyn oo dhacay qaladkaasna oo ahaa in barbaro laga qariyo heshiiskooda dowladda Soomaaliya ama lagu xadgudbay dowladda maadaama heshiiska laga dhigay saddex geesood magacii Soomaaliyana halka laga saaray iyadoo maamul goboleedka Somaliland iyo dowlado Itoobiya iyo imaaraadka oo iskaashanaya heshiiskaasi ay kala qaybsadeen dowladana laga dhigay wax aan bay jirin malaayiinkaas dollar haday aqbalaan farmaajo iyo qayre waxay kalsooni darro kala kulmi doonaan shacabka Soomaaliyeed taasi yeeshee wixii ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu Allah idmo subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaadsi subax wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waa Cabdullaahi Balwaar oo idinku dhaafaya sidaas iyo subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto tuntooda soofi Allah siyaadsi subax wanaagsan